munaasabaddan ayaa ahayd mid lagu caleemasaarayay caaqil cabdicasiis caaqil bakayr caaqil weyrax oo ka mid noqon doona caaqilada jamhuuriyadda Somaliland waxaana munaasabadaasi si heersare ah loo soo agaasimay ka soo qayb galay caaqilo madax dhaqameed odayaal iyo marti sharaf kale ugu horreynna waxaa munaasabadaasi ka hadlay odayaasha waxgaradka caaqilada ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu caleemasaarayay isla markaasina xilka loogu wareejinayay caaqil cabdicasiis caaqil bakayr caaqil weyrax waxaanay halkaasi ka soo jeediyeen hadallo waano iyo dardaaran isugu jira iyagoona ugu duceeyay in caaqil cabdicasiis caaqil bakayr caaqil weyrax uu ilaahay xilkaasi ku asturo marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxa mahad mudan oo mahad leh dadka halkan iskugu yimid ee sharafta leh ee cuqaasha leh ee odayaasha leh ee mutacallimiinta leh ee halkan iskugu yimid ayaa marka ay soo ajiibay xafladan lagu macsuumay ee aynu ku caleemasaarayno cabdilcasiis bakayr weyrax aw jaamac xaaji faarax ee soo ajiibay sida sharafta loo soo ajiibay mahad leh mahad labaadna leh caaqilnimo fac weyn weeyaan horto aad iyo aad u dheer waxaan filayaa inaanay jirin caaqilnimo la sameeyay oo ka horeysa waxay ka soo bilaabantaa xaaji faarax isagu waa kii shanaad ha ahaatee haddaanay dadkaa hore cimriyin 7 ba way gaari lahayd laakiin nin waliba isagoo da' sidaa maanta caaqilku u wareejinayo ayay ka wareegtay xaaji faarax iyo haddaynu in yar ka taabanno labadaa isdhalay xaaji faarax wuxuu ahaa nin sheekha oo dee caalima karaamana lagu sheego oo la yidhaah waa nin karaamaysan wax badan oo khawaariqana lagaga warramo wuxuu wax ku soo bartay uu ka yimid hereer waxay wax wada baran jireen culimo fara badan oo uu ka mid yahay sheekh madar axmed culimo fara badan oo uu ka mid yahay sheekh madar axmed ayay wax wada baran jireen way ka yimaadeen halkan oo colaad badani ka jirto colaadda iyaga ayaa ku guntaday oo dadka heshiisiyey magaalada degan xaaji faarax deeqdana wan buu ahaa dagaalkana wan deeqda wan buu ahaayo waxa la ii sheegay raaska iyagan maga dhex dhacay inuu kelidii bixiyey taariikhda waan ku maqlay inta dadka dhibaataysan baa xagga caaqilka mar walba u soo dhaqaaqda oo dhibta haysata ula timaada wixii dhib reerka ka dhaca amba reerku geysto amba loo geysto maareynteeda loola yimaadaa waa hawl mar walba taagan waa dad xil saaran yahay oo mas'uuliyadda weyn haya inaka aynu maanta caleemasaarayno hawsha intaa lee ku soo socda allah u fududeeyo caaqilka xafladda leh caleemasaarka leh ee aabbihii oo nooli uu maanta ku wareejinayo ilaahay aabbihii iyo ummaddan ka soo qayb gashayba ilaahay ha u aqbalo inuu caaqilkaasi ku guulaysto xilka loo igmaday ilaahay inuu ku guuleeyo subxaana rabbika annagu haddii aanu nahay madaxdii dhaqanka waanu soo dhawaynaynaa ku soo dhawow baanu leenahay nin dhallinyara oo qiimo leh oo qaaya leh oo meel ka soo jeeda dabaqad ka soo jeedaa tahay caleemasaarkan shan xaaji faaraxa inankaasi maanta ay ku yahay raggii ka horreeyey ibraahim waa runtii wixii uu ku hadlay oo dhane godob iyo gashi midna looma yeelan wax godobana may lahayn wax gashiyana looma yeelan madaxdii ummadday ahaaye dulqaadkii ummadday ahaaye geesinimadii ummadday ahaaye inankana ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay isagana inuu sidii waalidadiisii oo kale ilaahay inuu ka dhigo ayaanu ugu ducaynaynaa aad iyo aad bay farxad igu tahay maanta inaan ka soo qayb galno caleemasaarka iyo xurujinta cabdicasiis iyo bakayr waxaan leeyahay cabdicasiis aad iyo aad baa u nasiib badan tahay waxaad ka nasiib badan tahay cuqaasha dhaxalka qaadata ee dhaxasha waalidkood waad ka nasiib badan tahay waxaan malaynayaa garab istaag iyo taageero mooyaane duco iyo dardaar midna uga baahnide ninka aabbihii nool yahay ee ku soo koray guri dhaqan waxaan malaynayaa waxba kama maqna hal la duceeyo dadkana ha loo duceeyo dalkana ha loo duceeyo
waxaan leeyahay caaqilkana waanu ku ducaynaynaa waan ku soo dhawaynaynaa bakayrna waanu ducaynaynaa ilaahay cimriga iyo caafimaadka waa barakeeyo adna allah kugu asturo xilka uu ku dhiibay annaguna diyaar baanu ku nahay waanu garab taagannahay waanu ku haysanahay caaqilka waxaa loo calaam saaraa macnuhu ma aha ujeedo wax kale waa tigirkii shaabadii cashuurtii weeyaan inuu awoodayo oo uu magta reerka qaadayo oo wixii ka dhintana mas-uuliyaddeeda yahay wixii ka dhintana uu qaadayo wixii ku dhintana uu qaadayo intaa weeyaan waanu ku ictiraafnay waanu qaadnay waanu ku soo dhawaynaynaa waa caaqilnimo fac weyn sidii la soo sheegay waxa warbixinteedii hore bixiyey ibraahim waa uga markhaati furayaa intaa uu sheegay xaajigu waa igu sheeko wax badan baan ka hayaa wararkiisa waa aasaasayaashii hargeysa inuu ka mid ahaa waa ka markhaati furaynaa gurigaa lambar wanka ah xaaji faarax baa lahaa allah u naxariistay intii dhimatayba dhammaantood isagiiyo sheekh madar laba nin oo isku mid ahoo magaalada lafdhab rukunu ah bay ahaayeen xaaji faarax taariikhdiisa lama soo koobi karo wax badan baa laga sheegay wax badanna weli way harsan yihiin caaqilnimadaasi intay soo jirtay waa caaqilnimo runtii cadaalad iyo dhaqan wanaag ku soo sifowday bay ahayd aw jaamac baa ka dambeeyey weyrax baa ku xigay weyrax aw jaamac baa ku xigay bakayr baa ku xigay anigu bakayr baan garanayaan aad ula shaqeeyey bakayr waxa lagu xasuusan doonaa waa nin hal adag buu ahaa nin calool adag oo geesiya buu ahaa nin go'aan fiican buu ahaa nin cadaaladda ku wanaagsan baa bakayr runtii aad iyo aad intaan anu garanayo wax badan baan bakayr soo wada shaqaynay ilaahay waxaan uga baryayaa cabdilcasiis inuu noqdo kii dabeecada iyo raadkaa soo jireenkaasna ku sifooba ee dabeecadaa ku dhaqma ayaan ilahay uga rajaynayaa caaqilka cusub ku soo dhowow baan leeyahay xilkaa lagu idmadayna allaha kugu asturo waanu kuu ducaynaynaa waanu ku soo dhowaynaynaa waanu kula shaqaynaynaa waxa anigu aan ka ogahay weyrax in badan baan soo ag joogay aniyo ibraahim iyo caaqilka bakayrba annagu qoys baanu ahayn waanu isku barkada xignaa waanu isku guri xignaa meel baanu ku soo wada kornay ta kale aniga adeerkay wax adeer yidhaa raggii iigu horreeyey buu ahaa weyrax oo nasraalka timirta ah carruurnimada waad garanaysaa markaan makhaada yimaada ii iibiya ayuu ka mid ahaa marka waxaan leeyahay maanta waxaan ku soo dhawaynayaa caaqilka cusub een adeerka u ahay waxaan leeyahay allah kugu asturo allah kugu asturo waxaan kugu ducaynayaa xilkaa ilaahay kugu asturo taariikhda badan laga soo sheekeeyey ee runtii aad u faca weyn leh aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa geesinimada deeqsinimada dulqaadka intaa qoyska lagu sheegay in adigana lagaa helan ilaahay kaaga baryayaa gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay caaqil cabdicasiis caaqil bakayr caaqil weyrax oo aabihii si rasmi ah uu xilka ugu wareejiyey caaqil bakayr caaqil weyrax waxaana uu ilaahay uu ka baryay in ilaahay xilkaasi uu ku asturo ilaahayna waxa weydiisanayaa xilkaa culus ee la egmaday inuu i fududeeyo tolweynaha iyo marti sharafka ka soo qayb galay madasha waxaan ka codsanayaa inay igu duceeyaan xilkaasi inuu ilaahay igu asturo waxaan intaa u dhaafayaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu amniga iyo iimaanka inoo sugo inuu tawfiiq waarta ina siiyo in waxa weeyaan raxmadda ilaahay noo shubo nusqaynteeda inaga duwo colaadaha in ilaahay naga damiyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku wareejinayaa cabdicasiis bakayr weyraxow jaamac waana ugu ducaynayaa maal wanaagsan ilaahay mariyo ilaahay ku asturo ilaahay ku asturo waa saasaan ugu ducaynaya xamse qurbaani hargeysa